حمزة وشيخ ووداد وحاوي إن يسوي وركيس وعادي هاي بل هذا وحنلاقي هاي قضية موسى وربل وركا سفي عنو دقيسو فيصل على ورابين وكجواب وركا الله ورا موسى الرباين وكجواب هذا عدو كجواب يسوي جوابكو هبون ومعقولنا كبحي وركينا واكن رئيس الوزراء بل هذا داوشو وناكسن اخيارتا يا صاحبدا هودا نغلا سocdo dadka Soomaaliyeed waqooyiga Soomaaliya degan Somaliland waxaan rabaa inaan iraahdo Soomaaliyay soddon iyo ka badan oo sano ay odayaasha hadda idin hor socdaay reerka dhaanka u rareen waxay idinku yiraahdeen meel barwaaqo ah ayaan geediga ku furayna Soomaali inaga leexiya hayna tusina meel Soomaalidu surin ayna qaadin oo Soomaali joogin oo barwaaqo ah oo roobku ka da'o oo evergreen ah yaan idin geenaynaa idinku dhahay waa u sacbisana waxay dhahdeen la fiicantiina nawada naga wad abaartii Soomaaliya iyo kuleelkeedii meel ka mac oo ka fiican oo ka qurux badan oo evergreen ah nageeya waa daba socoteen soddon sano ayaa daba socoteen odayaashii say u sii socdeen mahalka idinku rideen oo u jeedaan meesha idinka tuureen haadaan bay idinka tuureen say u sii socdeen waxay idin yiraahdeen waan khaldanayna Soomaaliya maynaan ahayn oran maan ahayn lafti nagaa meeshaas horta idin bilaabay u sii socdeen jinsiyadiinii iyo nasabnimadiinii iyo qurayshnimadiinii iyo durriyadnimadiinii horta cagta mariyeen mar koobaad way idin nasakheen talaabada xigtana waxay yiraahdeen dhulkii waan dhiibnay khalaas adisamaan tagnay way soo saxiixeen dhulkii aad diideen in isticmaalkii caddaa dumarkiisu ay ku dhalaan iska dhaaf inay ku noolaadaan inay ku dhalaan oo ilmo lagu dhala aad diideen inta tageen ay soo saxiixeen waxaanu soo xasuustay quraanka ilaahay anu de waa fircoon dhimay laakiin waxaanu soo qaadanayaa miisaale quraanka ilaahay markuu ilaahay quraanka soo diray fircoon walaqad arsalna Muusa biaayatina wa sultaanin mubiin ila fircoon wa malayhi fattaba'u amra fircoon wama amru fircoon birashid ninka fircoon aad u talaxum buu ahaa marka amr fircoon nin talaxum buu ahaa yaqdumu qawmahu yawm alqiyaamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mawrud suu sii socday naartii buu dalqsi reerkiis oo madaxa u sii ahaa kana suu sii socday xagee u geeyay suu sii hor socday lafti nagaa u dalqsi way sheegta suu socday waxaa la soo gaaray meeshii aad iskaga xari lahaydeen marka odayaashaas ka hara odayaashaas waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed reer Somaliland dhalinyarada gabdhaha waa u mahad celinaynaa xaqiiqatan waxaan ugu mahad celinayaa sida geesinimada leh runta leh run u sheegga leh wadaniyadda leh Soomaalinimada leh ay waxa ay soo diideen inta yar ee wali ku katoon waxaan leeyahay war meeshu idin gaarsiiyay waad aragteen iskaga haran nimankaas dalkiina difaac leeyahay meesha madaxdii joogtay waa u jeednaa dalkaas idinka mas'uulka ah shacabka dalka difaac waxaa laga rabaa inay dalka difaacaan waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhalinyarada Soomaalida shacabka reer Somaliland meel kastoo joogaan inay istaagaan inay difaacaan dalka odayaasha waaweyn ee dhumay waxaan leeyahay war waa dhunteene ummadiina balaad u gelisayna soo noqda idinkuna soo noqda dib u soo noqda miiru ha soo noqdo waxaydan samayn karin isku lugoynina wax mustaxiil oo samayn karin sinaba aad u samayn karin dadka dhibaataha ku gelinina intaasaan dhihi lahaa